komishinka doorashooyinka qaranku jamhuuriyadda somalilan markuu arkay qodobka 138aad ee xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 146aad ee xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 390aad fikradiisa koobaad ee xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 390aad fikradiisa labaad ee xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 390aad fikradiisa saddexaad ee xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 390aad fikradiisa afraad ee isla xeerkaas markuu helay dhammaan natiijooyinka doorashooyinka madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka ee heer goobeed degmo iyo heer gobol waxa uu maanta ay taariikhdu tahay 19 November 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqaya natiijada ku-meel gaarka ah ee heer qaran ee doorashooyinka madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka waxaan yeerin doonaa natiijada xisbiyada qaranka tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 646,188 oo u dhiganta boqolkiiba 53 tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta boqolkiiba 8 boqolkiiba 8 tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,032 oo u dhiganta boqolkiiba 2 tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran 1 tirada codadka ururka barwaaqo helay waa 16,852 tirada codadka ururka rajo helay waa 2,083 tirada codadka ururka horseed helay waa 78,218 tirada codadka ururka tala wadaag helay waa 6,080 tirada codadka xisbiga ucid helay waa 10,105 tirada codadka ururka kaa helay waa 131,507 tirada codadka ururka hilaac helay waa 59,569 tirada codadka ururka shacabku helay waa 2,014 tirada codadka xisbiga wadani helay waa 216,284 tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 108,100 natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 647,860 tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 638,126 tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,528 tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta boqolkiiba 63,29 tirada codadka xisbiga kulmiye helay
waa 255,519 cod oo u dhiganta 34.81 boqolkiiba. tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 47. ma jiro xisbi ama urur helay boqolkiiba 20 codadka gobol kasta. sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku-meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen: 1 xisbiga wadani, 2 ururka kaah, 3 xisbiga kulmiye. halka natiijada ku-meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal, halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud. ugu dambeyntii, sida ku cad qodobka 138 fiqradda 1 xarafka x iyo qodobka 146 fiqradda 4 komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinaya maxkamadda sare si ay uga gudato waajibaadkeeda sharciga ah. allah mahadleh.